بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وموالاه. الأخوات الكريمات waxaan soo gaarnay muxaadaradii maanta ugu dambeysay aan ku soo khatimaynay waxa dhankayga fadhiya Dr. Ahmed Abdo Wali. Dr. Ahmed Abdo Wali waa muassiskii iyo madiirkii jaamacada jaamacada aad maqlaysaan jaamacadan weyn ee hadda islaamiga ah Kenya ka jirta oo jaamacadii ugu horeysay ee islaamiga wadankan laga aqbalay oo charter haysata ninkii aasaasay ninkan weeye marka wuxuu noo soo jeedin doonaa ciwaan ah at-tawaazun bayna amal al-bayt wal-mihna macnaheedu waxa weeye gabadhu ganacsigeeda iyo gurigeeda in mataqaanaa liisu miisaamo marka yaanan waqti badan ka qaadan doctorku soo dhow. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. موضوع الرئيسي والمغليسين وحكشة كينا هيا سيدي ليسوا فشلناها camalka guriga iyo wadiifada haweenaydu ay leedahay waxaan la soconaa oo sheegi doona hadii Ilaahay yiraahdo in risaalada ugu muhiimsan ee haweenku ay leeyihiin inay gurigooda ka shaqeeyaan. sidoo kale waxaan hadda la soconaa in waqti badan isbedelay oo casrigan hadda aan joogno noloshu ay u baahan tahay maareyn kale ubadka aan dhalay oo wiil iyo gabadhba isugu jira waxaynu u tirnaa tacliintaas hadda sheeko badan bay u baahan tahay. تعلينta ugu fiican ee muslimku barto waa inuu rabbigiisa barto iyo cibaadada looga baahan yahay inuu rabbigiisa ku caabudo laakiin waxa lagu lifaaqay oo ayadana laga marmaan ah in tacliintu ay dadka u noqoto wax qabsasho saas daraaddeed tacliinta ilmaheena ay dhigtaan waqti badan ayaguna geliyaan annaguna aan gelinaa. ilmaha wuxuu tacliinta ku jiraa muddo aan ka yarayn 20 sano wax yar bay ka yartahay. tacliinta asaasiga waxay ka qaadataa 12 sano. tacliinta sare qaybteeda koobaad oo jaamacadana waxay ka qaadataa ugu yaraan 4 sano. 16 sano ilmihi waa horujeed gabadh iyo wiil waa isku mid. marka waxaa daruuri noqotay maadaama dadka intiisa badan ay magaalo joogaan in tacliintii ay noqoto wixii wax lagu qabsan lahaa oo dadkan hadda magaaladan aan joogno waxaa ku nool baa laga yaabaa ilaa dad ku dhow 5 milyan. dadkaas adeegii loo fidin lahaa ama tacliin ha ahaato ama caafimaad ha ahaato ama maamul ha ahaato dadkan wax bartay baa haya. marka gabadhii waxay noqonaysaa ama guri ha ahaato ama ina guri lahaanina in wixii ay baratay ay mujtamaca u adeegto markii ay heer yeelatana waxa ku soo fakani shaqo kale oo culus oo wiilku sida badan oo wax badan una ka qabanin oo maareyntii guriga. marka mawduucan dhahaya sidee bay gabadhii guriga lahayd khaas ahaan ay isu waafajin kartaa hawshii guriga
iyo shaqadii guud ee ay haysay. afar qodob baan kusoo koobahayaa hadalkayga oo dhan haddii ilaah yidhaahdo. qodobka koowaad waa hordhac aan yara ishaari doono dabeecadda gabadha muslimka ah. waxaan la soconnaa in islaamku uu cinaayo gooni ah siiyey tarbiyada gabdhaha. gabdho iyo wiilalba inaan tarbiyeyno waa wax lainooga baahan yahay, laakiin siiba gabdhuhu waxay u baahan yihiin in aad looga fikiro tarbiyadooda, maxaa yeelay mujtamaca waxay ka yihiin qaybta ugu muhiimsan. faahfaahinteedana hadda nooma taalo. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man caala jaariyatayni xataa tablugaa, ninkii koriya laba gabdhood ilaa ay ka qaangaadhaan, jaa'a yowma alqiyaamati ana wa huwa kahaatayni, tuu labada farood saa isugu nabay yuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. laba gabdhood wixii ka badanna kaba sii muhiimsan, ninkii koriya oo si wanaagsan u tarbiyeeya, aniya asagu wuxuu dhahay aakhira jannadan ku wadaagaynaa. waa ahamiyad la siiyey tarbiyada gabdhaha khaas ahaan. xadiid kale nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, man buliya min hadihi albanaati shay-an fa axsana ilayhinna kunna lahu sitran min annaar. ninkii gabdhahan ilaahay uu ku ibtileeyo oo macnaha uu siiyo inamaa amwaalikum wa awlaadukum fitna, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gacanta u geliyo oo tarbiyadoodana hagaajiya, nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, aakharo ajir weyn buu leeyahay oo ah inay xijaab uga noqonayaan naarta. waa xadiis bukhaari wariyey. marka waxaan fahmaynaa tarbiyada gabdhaha in islaamku uu siiyey. axaadiis badan baa ku soo aroortay cinaayo aad u weyn. arrinta labaad oon rabo inaan baraarujiyo oo dadku marmarka qaarkood ay dareen weyn ayna u lahayn, gabadhu markay tarbiyada wanaagsan hesho ee ay guur gaadho, guurkeedaas waxay ku leedahay talo weyn. guur ayna raalli ka ahayn gabadha sharci maaha inay guursato oo lagu khasbo. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, laa tunkaxu lbikru xataa tusta'dana. gabadha bikrada ah lama guurin karo ilaa idan laga qaato. wala thayibu xataa tusta'mara. gabadha hadda ka hor heer yeelatay oo mar labaad rabta inay heer yeelatana oo ama heer loo yeelana lama guurin karo ilaa amar laga qaato. tii hore waxaa la yidhi ha laga idan qaato, tii labaadanaada waxaa la yidhi amarkeeda oo cad waa in la helaa. nabigu wuxuu yidhi xadiid kale sala allahu calayhi wasalam, al-ayimu axaqu binafsiha min waliyiha. gabadha garoobta ah guurkeeda ayadaa uga xaq weyn inay ka taliso weligeeda. waalbikru tusta'dan. gabadha bikrada ana waa laga idan qaadan. maxaa yeelay gabadha muxuu ahaaye heer soo lahayd dee wax badan bay hadda ay gabadha kale dheer tahay, oo inay ka fiirsato guurkeeda labaad oo ay ka niqaashto oy talada wax ka gasho bay leedahay oo amarkeeda cad u bixiso. gabadha yar waxaa laga yaabaa guurkaba inay aad u dareensanayn oo aabbaheed iyo hooyadeed uun ay ku kalsoon tahay, haddiina ayna aad u fahmaynin ruuxay guursanaysa iyo waxay kaga imaan karto. dabcan dee aabbaha iyo hooyadana waxaa laga doonahayaa inay maslaxada gabadha mar kasta ay xaggeeda jiraan oo ay u hiiliyaan. marka gabadhii wax ka didiya haddayna arkin way iska aamustaa. aamuskaana waxaa la yidhi macnaheeda waa waxa weeyaan ma diidin. laakiin hadday diiddo oy fahamto, weliba gabdhaheenna maalmahan mutacalimiinta ah way la socdaan. marka waxaa laga yaabaa inay waalidku u sheegto ay tiraahdo
ninka ma doonayo daysaa dhahdana waa in la joojiyaa marka waa intaa la fahmaa maxaa yeelay wax fara badan yaa ku wanaagsanaani markii gabdhaha lala tashado oo reelahooda la raadiyo oo ayagoo raali ay guur yeesheen midda saddexaad oo ku saabsan arrintan ayada xuquuqda tarbiyada gabdhaha waxaa ka mid ah xuquuqdooda in ay guurkeeda haddiiba guur ay yeelato oo ninkii ay wada joogeen ay aragto inaynaan wada noolaan karin guurkaa asaga ah inay soo dhammayso oo ninkii ay si sharciya kaga baxdo xaqaas gabadhu way leedahay in badanna arrintaas gabadhaha uma baraarugsanaa maxaa yeelay guurku iyo nolol ruux kale lala wadaago waa arrin aad muhiim u ah marka hadday soo baxdo markay gabadhii guursatay kadib ninka ay wada joogaan inayna ku qanacsanayn macnaheeda marmar ma aha inuu ninku xun yahay asagoo fiican oo nin qiimo badan ah iyadu waxay dareemi kay doonaysay ma aha si kastay isugu dayda inay ku sabirtana ma kari karto way dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u imaatay gabadh saxaabiyada waxay tidhi yaa rasuulallaahi zawjkayga thaabit ibnu qays lama noolaan kari waxaan rabaa inaan dhammeeyo guurkan asaga ah waxaan ka cabsan bay dhahday haddii aan la sii joogo inaan dembi ku dhaco oo macnaheeda maxaa weeye gabadhiisaan kuu sheegaya ninkii isagoo baan xumayn maxaa yeelay gabadhaa saxaabiyadda waxay dhahday akhlaaqdiisa iyo diintiisa aad bay u wanaagsan yihiin wax aan ka sheega ma hayi waa nin akhlaaq badan waa nin diin badan culimmada waxay dhaheen gabadhu waxay ninka ku dhaliilaysay nin qurux badan ma aha ma ay jeclaanin dee markii hore waxaa laga yaabaa si uun ay ku ogolaatay laakiin hadda markii nolosheedii ay sii socotay waxay aragtay ninkan inay ninkay jeclayd uun ahayn ninkaas saxaabiga ah waa nin cadiim ah oo janno loogu bishaareeyey oo jihaad ku dhintay oo khatiibu rasuulilaahi ahaa nin la gaadhi kara ma aha xagga khuluqda laakiin gabadhii ma jeclaanin culimmadu waxay dhaheen marka nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nabigu warkaa ma dhihin hadday tiri waxaan ka cabsanayaa inaan dembi ku dhaco nebigu wuxuu yidhi meherkii uu ku siiyey ma u celini beer bay ahayda haa war gabadha iska siidaa buu dhahay bal u fiirsa arrintaas marka culimmadu waxay dhaheen gabadhu hadday ay ku qanci weydo oo ay aragto nolosha zawjkeeda asagooba fiican hadduu xun yahay warkiisa ba iska daa hadduu yahay nin salaada ku xun oo diinta ku xun ay ku nacdo ama ay duqnimo ku nacdo ama ay daciifnimo ku nacdo ninka hadda gabadha ay ka baxaysay intaa midna ma ahayn laakiin qurux ahaan ninkay doonaysay ma aha shakligiisa may jeclaanin intaa un bay ku nacday waana loo fasaxay inay ka baxdo oy kaga baxdo si sharci ah ay culimmadu waxay dhahaan khuluc baa la dhahaa marka middan guryaha markay arrintaas oo kale ay imaato soomaalidu aniga intaan ka warqabo arrintan way ku xun yihiin oo hadday waxaa la rabaa intay arrintii dhuuxaan inay hadday arkaan labadii ruux inay wada noolaan karaynin ilaahay baaba yidhi subxaanahu wa tacaala wa in yatafaraqaa yugni illaahu kulla min sacatihi ruux kasta ilaahay faraj buu u furi marka arrintaasna waa inay gabdhaha ogaadaan inay yihiin xaq ay leeyihiin xaqa afraad oo kii hadda mowduuceen uu ku saabsan yahay ah waxa weeyaan gabadhu inay xaq u leedahay inay beecsharaysato tijaaraysato xoolo yeelato maal yeelato maalkaagana maamusho ruux ay idan uga baahan tahayna aabbana ugama baahna hooyana ugama baahna zawjana ugama baahna waa xaqeeda oo waa ruux waa muxuu ahaayey qaangaadh ah waan ka sii hadli doonaa middaas taas waa qodobkii koowaad aan intaa aan u qaybiyey oo ah xaqa gabadho ay leedahay oo aan nolosha ay ku leedahay zawjka oo aan meesha ka baxsanayn markaan fiirino risaaladiisa intaynaan risaalada haweenka u gelin laba shay un baan ku soo koobaynaa
guri markuu samaysmo ninka zawjka aan dhahno ee odayga heerka ka ah culayska xagga maalka laguma weheliyo asagaa qaadi wax allaala wixii kharash loo baahan yahay ama kharash guri ha ahaado ama kharash kale ha ahaadee asagaa kharashkaa qaadani mar haddii la saaray culayskii ku saabsanaa maamulka iyo xoolo keenidda waxaa sidoo kale la guddoonsiiyey inuu guriga ka ahaado madaxweynihii ruuxii ka talinayay talada koobaad lahaa hadda ogow waxaan sheegi doonaa guriga lagu noolyahay maamulkiisa hoose waxaa iskale zawjada iskale oo saan arki doono ninku wuxuu ku yaamarti laakiin talada sare sida hadda madaxweynaha waddanka ka taliya amarka guud buu leeyahay laakiin maamulka dowladda iyo wasaaradaha dad kala haya waxyaalo fara badanna kalama socdo laakiin wixii markaa asaga attentionkiisa imaada oo uu ka tala bixiyo waa lagaga dambayni ninku guriga saas buu ka yahay talada guud buu leeyahay xaggee la degi muxuu ahaayay maxaa heerku u baahan yahay talada maamulka guud inay zawjadu kaga dambayso tala ahaan yaa gurigu ku dhismaa intaa markaan ka gudubno waxaan u soo laabanaynaa arrintii saddexaad oo ah haweenayda inay maal yeelato oo maamusho waaban ka hadlaynaane laakiin markii aan fiirino dowrkeeda guud risaaladeeda muxuu yahay risaalada ugu weyn ay leedahay zawjadu ama gabadhu ay leedahay xataa ay leedahay qofta dumarka ah waxa weeyaan markay khaasatan guri yeelato in gurigaas maamulkiisa ay lahaato hoose oo dee ninkii baan ma dhahnayaa madaxweyne madaxweynenimadiisu waxa waayaan saan sheegnay waa hawl guud laakiin hawsha guud markii laga soo baxo gurigii dhisnaa ee loo soo hooyanayay waxaa iskale zawjada iskale waxaynu garanaynaa ninka guriga wax uu ku leeyahay maamulkiisa hoose ma jiro markuu shaqada ka imaado halkaasuu fadhiisanayaa wuxuu cuni lahaa asaga arrintiisa ma aha meeshuu seexan lahaana asagu kama talinayo dharkuu gashan lahaana kama talinayo dharkiisii ma la dhaqay shaqadiisa ma aha marka carruurtii iyo maamulkeeda iyo kala seexintooda dee wax loo kaalmaysan mooye dhaqankeenna markaan fiirino iyo dhaqanka hadda carabaha iyo dadka aan ka waranno waa hawl ay iska leedahay zawjadu gurigaas maamulkiisa hoose ayadaa guud iska leh ninku martibuu ku yaasaan la socono marka risaalada ugu weyn ee zawjadu ay leedahay waa maxaa yeelay mowduuceenna wuxuu ku saabsan yahay qof guri leh sidee bay sida kale gurigii shaqada ay ka qabanaysay iyo shaqo kale oo bannaanka oo ay leedahay say isu waafajisaa marka horta waxaan ogaanaynaa shaqada gurigu inay tahay shaqo culus oo ayada laga sugahayo waxay qabanaysaa heerkay daryeelaysaa zawjkay daryeelaysaa marti iyo maamul bay leedahay mas-uuliyadda ayadaa iskale nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay mas-uuliyada dadka dhan saaran kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi alimaamu raacin wa mas'uulun can raciyatihi imaamka madaxweynaha waxaa mas-uuliyad baa saaran oo waxa weeyaan dantaa guud ee dowladda waalrajulu raacin fii ahlihi ninkuna wuxuu mas-uul ka yahay danta guud ee qoyskiisu uu leeyahay buu ka yahay nabigu wuxuu yidhi walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha zawjaduna mar'aduna bilcaantuna qofta dumarkaana waxaa mas-uuliyad gaar ahaan ay ka saaran tahay guriga ninka guriga lama dhihin waxaa la yidhi ahlu beytku mas-uul ka yahay difaacooda xoolasiintooda dhaqaalayntooda tarbiyadooda guud weeye laakiin guriga maamulkiisa nabigu wuxuu yidhi waxay mas-uul ka tahay fii beyti zawjiha ayadaa mas-uulka ah marka mas-uuliyaddaas waa mas-uuliyad weyn guriga inay maamusho guriguna waa hoy dad ay ku nool yihiin sidii soomaalidu ay dhahdo mudane iyo martiba ayadaa loo yahay marti ayadaa maamul laga rabaa
risaalada labaad oo ay leedahay qofta heer kale waxaa ka mid ah oo risaalo cadiim uu diintu ku magacowday waa inay tahay hooyo waa inay tahay qof maxay dhahaysaaye caruurtii dhalaysa dhalmadaas iyo korintaas intaanba maamul la gaadhin waa shaqada ugu culus oo haweenka dumarka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ibtileeyey ibtilaan dhahaynaaye إلهي وحير في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا هو يده أوربي قاضي ويولعي ويضلي المهين ويتربيين بل شخذ أوفير صدى حملت أمه كرها حمليا يا إلمهن أي قاضيسو ويوضيسو وحول أذقوي مركا روحاس وحد قرنيسا شقداس أيضا شقا كعولس مجرتو نبي نوح يري المدالة ودهي آخران دي كفاني دوناي روحي المهدالة هي ننك معها وزوجي دي بعد العيسى مركا هذه أي نودهانو مثلا قبل باقورستي guurkii bariga hore waa balayara dadinji jirayo gabadhu 18 hadda 18 ka hor gabadha hadii la guursado bal saxiiba sad la socotaan gabadha 17 jir ninkii hadda guursada waa la soo qabanay badanka aan joogno iyo wadamo badanba ilaa 18 ay gaadho guur heer ma yeelan karto sharcigana waa wax kale noo sheegaya laakiin qaanuunka hadda meesha jira gabadhiina waqtiga tacliim bay ku jirtaa sida badan marka haddii gabadhii ay guur heer yeelato ayadoo oo jaamacadii dhammaysay maalan aan dhahno 22 iyo 24 oo ay ilmo dhasho average mutawassit dadka aan garanayo ilmahoodu 6 kama yara 6 7 haday dhasho oo mid kasta 30 bilood ama uurka ay ku wada ama ay nuujinayso de marka ilmaha la nuujiyana oo muxuu ahaayay wuxuu u baahan yahay ricaayo kale 17 ilaa 20 sano ayay ilmaha ku dhali 22 way ku guursatay iyadoo 44 ah haddii ba ilaahay qadaro yay waxay noqonaysaa inay hawshaas ka khafiifto de ruuxaas aminka shaqo kale ma qaban karo marka tan waa hawl haweenka u taala oo guurka iyo guriga la sameeyay faa'iidada ugu muhiimsan waxay ahayd in caruur iyo muxuu ahaayay awlaad ilaahay meesha ka beero midda saddexaad oo u taala haweenka waxa kamida waxa aan ku magacaabayno baytu sukuuni wal mawaddati war rahma inay samayso maxay la aayada quraanka markii guurka ka hadlaysay waxay tiri ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لماذا لتسكنوا إليها سيدا دغنانشو وهشان markuu ruuxu yahay bacalaga deganaansho male meel uu ka soo tooso ma garanayo meel uu u hoydo ma garanayo meel uu wax ka cuno ma garanayo marka sukuunkaas baa loo hagaajiyay waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma guriga gacanta ayaa ku haya waxa ku haysa zawjadii ayada sukuunkii iyo mawaddadii iyo raxmadii inay udub u noqoto laga doonayaa marka de ruux mashquulsan oo wax kale ku mashquulsan oo meeshiiba aan joogin oo ayada iyo zawjkeediiba galabtii ay meel kale ka wada imaanayaan hawshaas kalena inay qabato way ku cuslaanay hawlihii asalka ah markaan fiirino waa inay ahaato guriga ay mas'uul ka tahay waa inay tahay qofkii ayadoo ilmaha dhalaysay oo muxuu ahaayay tarbiyanaysay waa inay tahay guriga lagu soo hooyanayo ee la doonayo inuu noqdo meel sukuun iyo mawaddo iyo raxmo laga helo beeraysa oo hagaajinaysay waa shaqo aad iyo aad u culus nabiguna calayhi salaatu wasalaam markuu ragga la hadlayay wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam wax ka wanaagsan nimayagu ma helaysaan qof wanaagsan in ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanta idiin geliyo
نبي وحده صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير ما يكتنز المرء ما أوباهنتي الذين شهوا كيد هو نكسن هو نكسن الروح وكيسن كرؤون وحياي وحده المرأة الصالحة قف دمر أو زوجه صالح إنه هلو إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته نعمتها كوين بودا النبي عليه الصلاة والسلام بنو آدم لما سينا هيو حديث كلو حكي الدنيا متاع بخاري وخير متاعها المرأة الصالحة أيذين وحكي المركو النبي الله هذا هوينك هذه المرأة صالحة نقطان أو نينكاغا يغوريغاغا أتكاتان جنذين بنانك إذين تعالى إذا صلت المرأة خمسها وصامت شعرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت ما يشتربتك قال وحديث صحيحة مركا النعمة وحنو الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام آيات القرآن كان إنو شيختي نعمة إلهي ونسي تنقوين أدونك كويسون بعد الإيمان بالله وقري دقن ودد وناكسن أي دقنيهين وحكا وناكسن مرا انت سوى اسك مقدمة وحنوصل الله بنينا مركز رسالة دي أبو مهم سنيد ومدى صدع عن سو شيغني oo aan saddex qodob ku soo koobnay oo ah inay guriga maamula ka tahay maalinka hore ee maanta la soo arooso guriga iyada furaha la siinaya ninka waa banaanka u fadhiisanaya midii labaadna hadee waa dhalmadii iyo caruurtii midii saddexaadna waa mas'uuliyadna guriga inuu si khaas ahaan loo habeeyo hadii marka ay shaqo imaato waxaan dhahnay shaqadii casriga baa keenaya hadda waxaan la soconaa marmar badan hadda dhalinyarada guursanaysa markii hore sidii xadiidka nabiga uu noo sheegay qurux iyo gabadh heer hebel ka dhalatay iyo yaa la raadin jiray hadda wiilashu waxay raadiyaan gabadh meherad leh wuxuu dhigay anigu shaqo yar baan ku jiraa waxaan qaataa 50,000 40,000 heer ma maamuli karo haddaan helo gabadh sidoo kale iyadana dawladda u shaqeyso inta in la qaadata heer baan isla maamuli karnaa nin oday baa u yeedhay gabdhihiisii oo waalid ah markaasuu wuxuu ku yidhi hee dhawaad gaadheen wakhtigii guurka maxaa idiin qorshaysan markaasay dhaheen maxaa noo qorshaysnaan lahaa wuxuu ku yidhi dee wakhtigan la joogo gabdhaha guurka sidii hore ma aha gabdhaha qaar waa la guursadaa qaarna rag bay isguursadaan qaarna rag ayaga guursada marka idinku teed rabtaan inaad noqotaan ma kuwii sidii hore loo guursan jiray baad rabtaan inaad noqotaan mise kuwa ka qayb qaata guurkooda mise kuwa ayagu wax guursada bal noo sharax bay dhaheen wuxuu yidhi Soomaalidu waxay dhahaan ri kasta maxaa dhihi jiray shilalkii ay isdhigta maxaa dhihi jiray yaa lagu qalaa soo ma dhihi jireen wax saas oo kale ah gabadhu hadda maanta sidii hore maaha waxay barataa wiilkii waxaa laga yaabaa ay isguursan lahayd inay ka cilmi badan tahay inay ka firfircoon tahay marka wuxuu yidhi gabadhii hadday dadnimadeedii iyo tacliinteedii ay iska daciif tahay dee ninkii u imaado unbay raaci oo waxaa la hebel baa ku soo doonay marka wax tala oo ay ku leedahay dabcan way waafaqi haye waan guursanay leeno gabdhuhu waxba ka cabsadaan inay guumaysoobaan laakiin anigu markaan fiirfiiriyay guumaysaha gabdhaha iyo guumaysaha ragga yaa badan kuwa guumaysaha ragga badan bal idinku fiiriyo dadka garanaysaan inta gabadh ayadoon guursanin weynaatay iyo inta nin ayagoo guursanin weynaaday yaa badan ragga badan aad bay uga badan yihiin marka gabadhu hadiiba loo imaado mid iyo laba iyo ay diido ama ay dooranin marka dambe waxa laga yaabaa inay dhahdo waqtigaaba ku dhaafi marka taas wuxuu dhawaatii la guursanahay meesha la geyn iyo sida loo maamuli doono iyo mustaqbalkeeda muxuu noqon doonaa wax tala weyn kuma laha buu dhahay waa loo imaaday waa la guursaday waa la qaatay midda labaad wuxuu dhahay waa gabar saa ka koraysa oo dee waxbarashada leh oo laga yaabo inay meherad yeelatay markay saas noqoto talabka ku badani way kala doorani markay kala dooratana shuruud bay degsani seen noqon doonaa xageen degi doonaa
qaarkood shuruud bay ku xidhiyo waxay dhihi ilaa jaamacadda aan dhammeeyo waxaan doonayaa shaqadayda inaad faragelinin marka noloshii waxay ku yeelani qayb bay ku yeelani waxaa ka sii fiican buu dhahay gabadha iyada oo weli aan guursanin dowr yeelata mujtamaca ka soo baxda tacliinteedii iyo tayadeedii iyo qiimaheedii dadkoo dhan ay u tartamaan oo mujtamaciiba wax u haysa marka ninka marka horeba guurkeeda ayada u imaanaya dee wuxuu ku soo raacay qiimahaas iyada khaaska marka mujtamaci ay hogaaminaysay yuu ku darmari isaga naftiisa wuxuu diyaar u yahay in la maamulo marka waxay noqonaysaa sida iyada oo iyadiiba ay guursatay dabcan wayna kala dooranay marka haddaan u soo noqonno haddiiba ay lagama maarmaan noqoto oo marmarka qaarkood zawjkeedii uuna ku filayn in heerka wixii ku filaan lahaa uuna haynin oo iyaduna cilmi iyo muxuu ahaaye meherad ay soo baratay maxaa markaa shaqooyinka u wanaagsan ah sidaan sheegnayna gurigu waa lafdhabar sidee la isu waafajin karaa culimmadu marka waxay dhaheen dee haweenku inay shaqaysato wax u diidi male weliba hadda waqtigan aan joogno oo gabadhii laga yaabo inay dhakhtarnimo baratay oo laga yaabo inay macalinimo baratay laga yaabo inay shaqooyin fara badan ay diyaar u tahay shaqada ayada ah yaa la kala qaadi ma shaqo u baahan baa inay gurigii ka baxdo mise waa shaqo ay qabsan karto iyadoo gurigeeda joogta shaqooyinka u baahan inay gurigeeda ka baxdo khatar bay ku haysaa saan sheegaynay shaqadeedii rasmiga ahayd ama risaaladeedii rasmiga ahayd oo ahayd inay guriga manage garayso oo ahayd inay caruur fara badan dhasho oo ahayd in ay guriga ay ka dhigto guri xasilooni iyo raxmad iyo mawdo ku dhisan challenge bay ku keenaysaa marka waxay u baahan tahay iswaafajintii marka culimo qaar waxay dhaheen horta waa inay zawjkeeda idankiisa qaadato waa sharti kaas bisharti zawjka hadduu yahay nin ku filan inuu heerkii biilo waxay dhaheen hadduuba asagu shaqo la'aan yahay xataa kama idankiisa waa la tuuri leanna asaga amarkiisa wuxuu ahaa inuu heerka mas-uuliyadda xagga maalka baahida inuu dabooli karo hadduu dabooli karaynin wax daacala ma jirta arrintaa ku saabsan ayadaa kici oo soo dooninay marka haddiiba zawjkii uu yahay heerkii uu ku filan yahay intii tabartiisa ah oy tiraahda haweenaydii anigana waan bixi waa inay ku heshiiyaan laba waa inay aada uga fiirsataa meesha ay ka shaqaynayso in meesha ikhtilaad fara badan iyo muxuu ahaayey wax sharafteeda dhaawacahaya inay ka imaanaynin khatartaasna inay ka fiirsato saddex camalkaasu waa inuu yahay camal iyaduba ay si fudud ku qaban karto oo camal haddii hadda waxaan arkaynaa gabdhaha qaarkood oo maalmaha hadda kenyaanka kale ku soo batay haween hadda guryo dhisahaya oo dhagaxii qaadahaya oo ciiddii koroweynahaya waa shaqo haweenka aan ku fiicinayn markaa shaqada kalena inay ka fiirsato way fiicantahay dhaheen midda afraad shaqadaasu maadaama gurigiina laga rabo waa inay wakhtigeedu dhan una qaadanin oo hadda maalan Kenya maxaa la shaqeeyaa 8 saacadood haddaad meel rasmi ka shaqaynayso haddaad dawladda u shaqaynayso ama xafiis ama shirkad 2 saac baa laga rabaa shaqada inaad xaadirto muxuu ahaayey 5 galabnimo waad ka soo wixii haddii saan noqoto habeenkiina way dhici ilmihii way dayacmay ama waxay noqonayaan intay tagto irbad isku dhufatay ilmaba inay dhaleen oo iska xidho taana dee maslaxadii mujtamac iyo maslaxadeediiba ma aha midda saddexaad midda u dambaysa waxay dhaheen dee haweenku inta badan markay baxayaan waxay jecel yihiin inay aad isu qurxiyaan taana ha ka fogaato shaqadaas waa shaqadii saan garanayno shaqooyinka ugu fara badan u baahan bixitaan ayagana way kala fiican yihiin oo qaar baa haweenka sida maalan inay dhakhtar noqoto dhakhtarka haweenka inay noqoto macalimad iskuul gabdha ah shaqooyinkaasoo kale way u fiican yihiin oo ikhtilaadna ma keenayso wax loo baahan yahayna way qabanayaan laakiin waxaa uun la rabaa wakhtigoodii in ay baataym ahaan oo kale ama nus ama shaqo saasoo kale ay noqoto shaqada labaad marka shaqadaas aan sheegnay hadda noocaas oo kale ay wakhtigeedana wakhti badan ka qaadanaya
khuruujkana u baahan shaqada khuruujka u baahan aadaabtaas bay leedahay intii la kari karana waa lala tacaali maba dhahayo waa laga fiirsane waxaa jira markaa shaqooyin aan u baahnayn inay zawjadii ama qoftii guriga lahayd inay u baxdo waa shaqooyinka ugu fiican gurigeeday ku samaysan kartaa waa waxa aan dhahno maxay dhahaareen aliqtisaadu almanzili home economy waxay gaalada dhahaan waana wax aad u faa'iido badan baa la dhahay oo ay haweenku ku soo kordhin karto inay dhaqaalihii kor u qaado inay iyadaba nafteeda dhaqaale ku yeelato waxaa ka mid ah hadda meelahaas oo kale haween baa jirta cunto kariya oo ama kibis duba ama cunto loo baahan yahay diyaariya ama wajabaad khafiifa diyaariya saambuuse iyo chapati iyo muxuu ahay mandaazi iyo cuntooyin khafiif ah oo dadka laga iibin karo bay gurigooda ku sameeyaan way gadahayaan ama guriga ku gadi ama dad bay u dhiibahayaan waxaa jira haween barteen farsamada gacanta oo wax toli ama tadriisin ama caynka noocaas oo kala sameyn khiyaat ay sameyn dharka loo baahan yahay xataa uniformyada guryaha ay ku sameynayaan dharka maartay dildilaac bay tolahayaan waxay guriga ku sameynayaan waxyaalo yar yar oo dhar oo loo baahan yahay waa wax loo baahan yahay fiican midda saddexaad waxaa jira meelaha qaarkood dadka shaqeeya caruurtooda haween koriya guri bay leedahay qol bay diyaarin ama meel bay diyaarin ilmaha daycare bay sameeyni ayada lacagta ka qaadanaysa waa wax la sameyn karo waxa ka mid ah midoo kale gabadhi waa mutacallimad guriga wax ku bari dadka haddaba way jiraan sawsi caruur anigu aan muxuu ahay waliyul amr u ahay quraan bay soo xifdiyeen waxa xifdisiisay gabadh baa xifdisiisay kaliisna maaha guri bay sameynaysaa ayadii baa xaafidad ah ayadii baa macallimiin kale qoranaysa meeshii bay ku diyaarinaysaa tacliimul atfaal carabi bay bari ingiriiska bari quraanka ay barani ilmaha homework ay waajibka sameynaysa ka saacideeyni waa shaqo sida meelaha kaleba loogu diro khadamaatu tajmiil waxay u sameynaysaa haweenka bilicdii quruxda sameeya xinihii timihii la dabahayay mikiyaajkii waxyaalahaas oo waxay ku sameynaysaa gurigeeda compoundkiisa ama guri raacsan oo kale haween waxaa jira oo qaarkood ba hadda anigu aan darisnahay alaab iibiyaan internetka isticmaalayaan ruuxii alaab iska iibinahaya ama iska celinahaya ama meelaha ay alaab ka soo qaadaan website bay samaysanayaan way design gareynayaan advertisement lagu iman maanta dhan waxa iibinaysaa alaab iyadoo gurigeeda joogta telefoon bay ku isticmaalaysaa iyo internet waxa kamid ah in ay sameyn karaan bacd almuntajaat albasiita saabuunta saailka oo kale guriyahay ku sameeyaan casaa'ir bay sameynayaan oo juices oo dadka laga iibinayo dariskii hatta hoteelada loo qaadaa guri aniga aan darisnahay hadda meesha aan ku jiro sawsi hotel magaalada ku yaala cuntadiisa gurigaas laga kariya hotelka waxa ma kariyo subaxdii waa imaanay gaariya lagu qaaday duurka lagu qaadaya halkan baa lagu sameynaya dadka intay joogan hotelka waa uun lagu iibiyaa waa wax ay sameyn karaan khadamatul ghasl wa tanzif annaga dry cleaning ma tagna guriyaha qaarkood way sameyn karaan inay ghasaaladii bay leeyihiin shaqaale yar bay qoranayaan oo wax ka weeya darisko dhan bay dharka u dhaqayaan oo u baasahayaan oo u tanziifinayaan waxay kale oo ay dadka ay sameyn karaan alcamalu cabla internet bayaanaad dadka gabdhaha soo barteen computerka khadamaad fara badan oo computerka dadka u baahan yahay gurigay ku sameeyeen waxbay u sawiri waxbay u taabicin waxbay u nadar gurigay ku sameeyeen intaad magaalada aadi lahayd guriga dariska bad waxaas u dhan aad ka helaysaa guryaha space kale waxay sameyn karaan in ay ku sameeyaan ayagana beer yar oo waxay soo saarayaan khudaar spinach bay ku beeri carrot bay ku beeri waxay ku beerayaan ayay ku beeri hatta meel digaag baa loo sameeyo oo ukun baa lagu dhalini waa waxyaalaha iyadana la sameyn karo guryaha lagu sameeyo marka waxaas oo dhan waxa la dhahaa home economy guriga lagu sameeyay maamadii uma baahan inay baxdo hadii waliba space haysato arimahaana marka qaar waxay ku fiican yihiin dadka de magaalada weyn ka baxsan oo Gaarsi iyo Wajeer iyo meelahaas oo space kale way sameyn karaan waxyaalaha kale oo aad loo oo guriga lagu sameeyo oo ayadu maamada ayadu guriga ka bixin ay sameyn karto waxa kamid ah
in ay maalgashi ku samaysato waxyaalaha stock exchange oo kale stock inay ku samaysato boorsooyinka inay ka baayaa mushtari waxyaalahaas oo kale al-itijaaru fi suuq al-ashum lacag aan badnayna waa la isticmaalaa markaan anigu hadda aan saaka fiirfiiriyey stocka Nairobi oo kale waxaa laga yaabaa kuwa ugu waaweyn oo hadda qaarka foreign-ga waxyaalaha ugu yar ee aad muxuu ahaay ku maalgashan karto waxaa ka mid ah 5,000 oo shilin oo Kenya qaarkoodna hadda 1,000 bay ogol yihiin 5,000 baad gelini waxyaalahan ay dhahaan sanaadiiqu almu'ashiraat doctorka garanayo dhaqaalaha bartee niman ay dhahaan baa ayaa arrintaa manaj gareeya marka gabadhii waan aragnay mararka qaarkood guryaha waxaa laga sameeyaa wax la yidhaahdo hagabad haweenku lacag bay iska qaadaan ayagoo intay gurub isugu biiraan markii adiga lacagtii aad soo hesho lacagta ayada waxaad dhigi kartaa marmarka qaarkood ma garanaysid laakiin xataa gabdhahan soo bartay businesska waxaa fiican inay xafiis meel ka furtaan lacagahaas waxaad dhigan kartaa ood ku investment ku samayn kartaa sidaan kuu sheegahay sanaadiiqul mu'ashiraat khasaarahoodana aad buu u yaryahay faa'iidadoodana way badan tahay haddii aad maalgashi ku samayso adoo gurigaagii jooga baad noqonaysaa ruux leh tijaaro kobcaysa oo wax badan aad samayn karto marka waxyaalahaasoo dhan waxay u baahan yihiin in aan isku tababarno in aynu muxuu ahaaye baranno laakiin sida aan sheegnay waqtigan aan ku noolahay waxay saan aan isla aragnay gabadhii hadday wax barato waxay u baahan tahay waxbarashadeedii inay ka midha dhaliso wax ku qabsato laakiin markasta wax ku qabsigaas wuxuu u baahan yahay in ay isha ku hayso caruurtaadiina bal bufiiriya gabadhu markay ilmo dhasho ilmahaas waad la socotaan daqiiqadoo lagama maqnaan karo ilmo maanta dhashay ama shalay dhashay waa in la kor taagnaado waa cad hilib ah soomaad garan marka muxuu u baahan yahay hooyadii hadday baxdo ay gabadha ay qaraabo yihiin kaga tagto ama gabadh shaqaala ay kaga tagto xataa markay xaggaa tagto qalbigeeda ma deganaanayo xaqiiqatan yacni saacadda laga bilaabo ilaa ilmaha iskuul uu ka aadayo 4 jir 5 jir waa cad hiliba dee markuu kii kale uu aaday iskuul kii labaadna waaba dhashayba haddayna ahayn markii horeba sida dadka qaar ay yeelaan shaqadaa noo muhiimsane ilmahii inaan ka badinayn 2 ama 3 oo markay dhasho hadda waad aragtay dadka hadda shaqada iyo gabdhaha way isku qataaran yihiin oo liifka la siyaaba weyn dadka qaarkood hadda waxayba ka baaqsan inay gabadhba qoraan dowladdu bay ka baqaayaan ma ogi hadday markaa ay gabadhiina taa maskaxda ku hayso waa inay markaa uun cumrigeeda ku soo gaabsataa 2 ama 3 inay dhasho inta u badanna ay shaqaysato tanna waa option kale waa in la iska ilaaliyo marka arrintaasu ragga uma taalo gabdhahana way u taallaa labada zawj unbaa isla fiirini maxaa noo fiican gabdhahana marmarka qaarkood waxaan ka keenay weynay anigu jaamacaddan muddo joogay dad badan oo waalidina waan ka warhayaa gabadha markay dooranayso koos waxay dooranayaan nolosheeda aan waxba ku soo kordhinaynin waxyaalaha anaguna saxan kamid bal tacliinta qaado laano gabdhaheeni iskuulka ku jiray rag baa u dhigahaya bal calal aqal aad doqotid gabadh muslim oo gabdhaha kale u dhigee education qaado ma jirto gabadha waxaad arkaysaa technology waxay qaadanayaan qaar waxay qaadanayaan engineering bay qaadanayaan xataa kuwa dhakhtarnimada qaatay dee qaarkood cadaab ay geli markii hadhow shaqo ay imaato leano dhakhtarnimadu waa shaqo adag aad bay u culus tahay qalliin bay geli habeenkii baa loo yeedhi ma nasanayso waa shaqo culus weeye inkastoo loo baahan yahay ay waajiba tahay in aan helo gabdho mutakhasisiina khaasatan fi amraad nisaa oo haweenka daaweyn kara waa loo baahan yahay waa laga maarmaan laakiin waa shaqo adag shaqooyinka aad koosaska aad u fiican oo gabdhaha inay bartaan waxaa mid ah kuwii hadda aan sheegaynay wixii la xidhiidha oo income-na ay ku samayn karaan dhib weyna aan lahayn farsamo badanna aan u baahnayn intaas baan ku soo koobahayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu جزاك الله خيرا دكتور أحمد عبد ولي محاضرة قيمة ونسو جديد عوان كدوها التوازن بين عمل البيت والمهنة قبضوا إن يسود لترتو قرية إيو
iyo shaqadeeda. Doctorku canaawiin badan buu ka hadlay, ma soo koobi karo runtii, duhurkiina wuu nahayaa, laakiin waxaan soo qaatay hal arrin keliya oo doctorku uu ka dhawaajiyey mar uu dhahayay laa taacata lizawj idaa lam yuqadim almasruuf. saan u fahmay kolley marka in ninku hadduusan biil dhiibaynin uusan taaco lahayn. marka doctorka waxaan rabay inaan weydiiyo waxaa weeye anigoo gabdhaha matalaya, nimankii inta badan hadda jooga waxay u badan yihiin inayna biilba dhiibinba. marka arrintaas soo iska hormaad ka imanayo? maya, ma dhihin ninka lama adeecaya, ma dhihin. waxaan ka hadlaynay gabadha inay shaqo u baxda bannaanka. marka ninkiiba hadduu nafaqa bixinaynin oo waxba haynin, dee ma aha say ku imaataba in iyadu risqii ay wax ka dalabto ay keeni karto. culimmadu qaar waxay dhahan idan uma baahna, maxaa yeelay waaba la gaajaysan yahay dee. laakiin taacadii guud ninka hadduuna ahayn nin faasiqahoo noocaas oo kale oo laga tababaxaynin, taa ma sheegin. asalaamu calaykum. waa mahadsantahay doctor. midda kale doctorku wuxuu yidhi canuusat arijaal aktar min annisaa. kulley waxaa malaynaya inaan la tiro koobintaa lafteeda, micnaha raggaa ku badan buu leeyahay in guurka laga daaho marka loo fiiriyo gabdhaha loo fiiriyo. inta badan gabadhun baa la eegaya oo leeyahay guurkii way ka daahday, laakiin doctorku wuxuu sheegay rag badan oo aad u fara badan marka la helo hal gabar in 5 nin ay joogaan oo la helayo. marka la isfiiriyo Soomaali ahaan taana waxaa malaynaya inay sax tahay. marka ilaahay dan barakeeyo. intaasaan maanta aan ku soo koobi doonaa insha Allah taala.